السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودو صاحبيال ومركا أي برنامج كيني كدس ولي وحين كوبي جرنا طبعا الدنباء بشهر رمضان الله ينوف وجيه خير كبشان بركيسان وحين قلنا ما أنت حلقتنا لبات فحسبنا إلى أفر سؤال شوقها رئيسة دانو قدو قلبو حيلاد حي حيوان كبير الكيس اللي يسمين كروخد تابعات دوا با شبيلك تا مرودقة جا لباحة waraabaha marka la anfacdo xayawaanka dhareerkiisa laga sameyn karo khada daabacaadda waa ba shabeelka ta maroodiga ja libaaxa xa waraabaha mar saddexaad xayawaanka dhareerkiisa laga sameyn karo khada daabacaadda waa ba shabeelka ta maroodiga ja libaaxa xa waraabaha jawaab wacan waxaad haysataa waayahay jawaabtii ay bixisay gabadhaasi waa mid sax ah waxay dooratay xarafka ja oo libaaxa ah su-aasha labaad kelimada aldunya waxaa qur-aanka lagu xusay ba 125 jeer ta 135 jeer ja 145 jeer xa 115 jeer mar kale aan ku celiyo kelimada aldunya waxaa qur-aanka lagu xusay ba 125 jeer ta 135 jeer ja 145 jeer iyo xa oo ah 115 jeer marka ugu dambeysa laga fur kelimada aldunya waxaa qur-aanka lagu xusay ba 125 jeer ta 135 jeer ja 145 jeer 145 jeer xa 115 jeer jawaab wacan waxaad haysataa hal daqiiqo jawaabtii ay bixisay gabadhaasi waa mid saxa waxay dooratay xarafka xa 115 jeer su-aal saddexaad caasimada dalka Syria waa ba Ciraaq ta Baghdad ja Sham xa Luanda mar kale aan ku celiyo caasimada dalka Syria waa ba Ciraaq ta Baghdad ja Sham xa Luanda marka ugu dambeyso caasimada dalka Syria waa ba Ciraaq ta Baghdad ja Sham iyo xarafka xa oo ah Luanda jawaab wacan waxaad haysataa hal daqiiqo waayahay jawaabtii ay dooratay gabadhaasi waa mid khalada xarafka saxsan waxa uu noqon doonaa xarafka ba su-aasha ugu dambeyso xayawaankii uu allah subxaanahu watacaala usoo diray qaabiil si uu u tusiyo qaabka uu walaalkiisa u doogi lahaa maadaama uu ahaa qofkii ugu horeeyay ee wax dila waa ba hudhud ta tuke ja kibili xa quraansho mar kale aan ku celiyo xayawaankii uu allah subxaanahu watacaala usoo diray qaabiil si uu u tusiyo qaabka uu walaalkiisa u doogi lahaa maadaama uu ahaa qofkii ugu horeeyay ee wax dila waa ba hudhud ta tuke ja kibili xa quraansho marka ugu dambeysa xayawaankii uu allah subxaanahu watacaala usoo diray qaabiil si uu u tusiyo qaabka walaalkiisa u doogi lahaa maadaama uu ahaa qofkii ugu horeeyay ee wax dilay waa ba hudhud ta tuke ja kibili xa quraansho jawaab wacan waxaad haysataa hal daqiiqo waayahay jawaabtii ay bixisay waa mid saxa waa xarafka ta hambali ayaan leenahay aada u mahadsan tahay daawashada muuqaalkan sii gaarsiiya asxaabtaada si ay iyagana wax uga dheefaan nabadgelyo waa inuu xalqada xigta ramadaan wanaagsan